dadka sharciyada la siiyo dadkooda ma la soo qaadan wixii fahmiyaa arrinta Mareykanka goorma ugu dambeysay dad ay qaadaan dad badan waxa jira maalta deganaa oo iskaga baxay oo imka Yurub hadda doona iskaga wareereba oo raba inay maadaan oo arrinkii Mareykanka hunguri kaga jiro dadka maxaad iga leedahay wariyo ninka salaam alaykum arwal alle ninka wadiga wala kulmayba Yurub dhulka ugu kululay ka mid tahay caasimada waaye falayka laha waa maalka meesha ay joogno samarkeeda ilaa October waa iska samar October wixii ka dambeeyo November markii la gaaro kala xagaayay gari iyo qabow aad u qurux badan Soomaaliinta liga horta degan meesha Soomaali way dhooban tahay aad u buuxa way waxa ugu badan shaqooyinka ugu badan ay hayaan xakamada nadaafada Soomaalida u badan way jakinka oo kale warshadaha jakinka sameeyo amba qalo way Soomaalida ka shaqeyso way wixii ban nadaafada Soomaalida u badan tagaasida way wadankan Malti ma jiraan gobol kale Malta laba qayb waa Malta iyo Goos waa labada magaalo labadaas magaalo weey adigu horta wadanka qasan ilaa muddo 6 sano ku dhawaad way Soomaalida saad ku soo gashay meesha garan karto ana markii hore 17kii waxaan ka soo galay badda Liibi way Italian ka xirtay Italia sharci ka soo qaatay ka bacdi intaan aan shaqo u maadaama Italia aysan shaqo lahayn Malta ka shaqo waxaad lagu tooto todobadii aan imaaday ilaa 19 bilowgeedii Talyaaniga sharci iyo baasaboorka sugaya markaan ka soo helay intaan soo aaday inta la shaqeyn saada intaan waa shaqeeyahay mararka qaar xilliga winterka kala shaqo ma lahan waa laga yaabaa dhowr bilood inaan shaqo la'aan laakiin samarka waa la shaqeeyaa siiska wada shaqo leh wadan shaqo waaye dadka dhan shaqay u soo aadaan ilaa markii laga reebo samarka dalxiisayaasha imaha laakiin wixii madowba shaqay u soo raadaan dadka sharciyada la siiyo dadkooda ma la soo qaadan wixii fahmiyaa may Malta wax family leh shaqo ma laha ku soo qaadinayso arrinta Mareykanka way xiran taas mar hore u dambeysay walow aniga aan sharcigooda lahayn laakiin dhaqdhaqaaqa la socdaa arrinta Mareykanka isku dhamaatay ay intii dadka qaadi jirtay Mareykanka in jirtay waadanbo Donald Trump niya mid oo madaxweyne qabsaday ay xirmatay laakiin hadda dib inay u furmato waa laga yaabaa hagada wax process-kaas goorma ugu dambeysay dad ay qaadaan wallahi saaxiibo aniga hadda maqayaasi يعني ما خصوصته لكن إني حرمتان هو تجاسليد بدنا شرعي أنت اللي هي لينك وانو حرمي وده اللي هنا عيقنا بس بور كوين أكره وحقتي مقرنس مية أنت لقى ما قعدت كوين ده كم سنة ده سدح 8 سنة سدادي 8 سنة جوعان باسبور وين مدي سدح راس سنة ما بدأ فيه سدح سنة داعي والوقوع عزبونيسيها وداعي صاص لا واحد نتيجة مرة مستقبل مرة ضد بدل واحد شراء مالتد الجناء أو سكجب حيوان يمكن يروح هذا الناس كجوا ورا oo raba inay maadaan oo arrinkii Mareykanka hunguri kaga jiro dadka maxaad iga leedahay wallahi inuu dib u furmo waa macquul laakiin hadda wax process ma jira la yaa dadkaas oo hadda Mareykanka ku saabsan in la isku qaado inta badan dadka inta joogo oo sharciyada leh faraha soo ma baxaan way iska aadaan Yurubtan kala siibo Paris sharci kala ka raadsadaan badanaa way ka heleen mana soo laabtaan Paris ka mustaqbal fiican dadkii sharciyadu ay ka dhaceen waxa weeye ama wadamo kale sharci ka qaatay ama deynta halkan ka baxeen wali sharci la'aanta ee ku fikirayay inay sharciyadoodii jeedisadaan arkin waxba laga bedelay arrinta ugu weyn waxay soo rogeen Malta 23 inay soo rogeen oo malaha sharci waxay soo rogeen qafti sharcigeena haysato 1 year oo ka dhacsanaado dib dambe loogu cusboonaysiima markii dadka sharciga hal sano qafto oo ka dhacsanaada deerta gudaha joogto oo yaani Malta dhex joogto hal sano sharciga haduu dhacsan yahay ma lagu jadiidiyahay sharcigaasi soo rogeen hadda Malta waa maqlaysan ha ku soo logeena haddii si kale ku dhigo dadkii wadankan deganaan jiray ee ka baxay ee sanad ka badan maqnaa ha ku soo logoyn sharciga lagu jadiidin maayo saaxiibow arrinkii Mareykanka uu xirmay ha ku soo ha ku daraysataa inta soo ku daraa qafti meeshan meel ka roon joogto sharci ka haysatay inuu ku soo laaban laakiin shaqada family ku keeni maayaan mustaqbalkaada familkaada iyo adiga kala taaga ku jiraysi hadaad shaqaysid sanad walba wadanka ina aad ku qasbantahay hadaad famil oo ku jiro midda labaad aan ku daraa waxay tahay hadii lagugu ogaado in aad wadanka sharciga waa laga cishaa ila boorka lagaaga reebaa ayay nin waxaan ogahay nin ay ku dhacday tigidki xagga oo kala yimid Soomaaliya asoo wato soo galay borsadiisa la baaray markuu baarista maray sharciga yaani waxa laga helay tigidka Soomaaliya asigana mid kale oo Kenya oo ku soo duulo waday labada tigid kii Soomaaliya inuu iska tuuro ahayd oo qashin ku daro kii uu isku soo ilaabay
markii lagu arkaan miiska saaraa la laftii walaa ii sheeg baasaboor noo kala wad marka waxa la dadka soo lugina ku soo lugoyn Allah meesha meel aan tada sharci ka haysatiin xagga familkiina ka keensada meeshiina ku imaansada xagga guryaha kale xagga guryaha inta raqiis waaye guryaha inta waa la helaa waa raqiis hada guri dhan kireysay hadii Soomaali guri degan aad sariir ka kireysay waa iska 100 150 120 meeqa qol sariirta waa qol guriga guud marka kireysay saddex qol oo kala haduu yahay waxa waaye ii sheeg ugu yaraan waa iska 400 euro kama badna saddexda qol mararka qaar waa ka yaraa kiriyaa 350 oo naga kiriyaa symbols bay bujibo kale kulli waa isku mid kulli waa isku mid maalta guriyeeda waa isku mid waxa qiimaha ay ku kala bedelayaan xagga shaqada sidee taada shaqada mar walba maalta way ku fiican tahay laakiin waa in ay dhiigeeda haysatid haday suuq madow ahayn shaqada oo ay dhiigeeda haysatid birmad waxa la lahaa xarayhe waana ku shaqayhe shaqada aad ay ugu wanaagsan tahay qafta aan haysanin sharcigeeda oo yaani suuq madow rabta ay xoogaa shaqada ku adag tahay mooyee dadka sharcigooda haysto warqad ba Allah ka dhigay ee ayaga badda ka soo badbaadiyay shaqada meeshan waxa waaye fuul waa hele ma jiraan dad wadamo kale sharciga kale oo halka yimi oo warqad shaqada la siiyo shaqeeya ana taqaanado way ka cishahayaan ana kamidaba ani Talyaani aan ahay sharci Talyaani ha wata yaani Talyaani aan ka imaaday warqadooda waxay ii shaqayhaysay ilaa 4 bilood 4 bilood ka bacdi Paris markaas soo martid ay ogaadaan inaad meeshaas farakulada warqada way ka cishahayaan dib dambe ku jadiidmayaan suuq madow kala ka war suuqa madow way dhib badan tahay saaxiibo maxaa yeelay qafta aad u shaqayhe contract amba birmad uguma shaqeeyoosid hadii lagu qabto kambanigaas ayaga xirma oo ganaaxma adigana dhiba kaaga imaaha Talyaaniga lagu celiyaa marka qaf shakhsi oo markaas meel yar la amba meel yar loogu shaqeeyaa oo kale inaa u shaqeysimo kambani weyn suuq madow looguma shaqeeyo warqad shaqo kugu xidhay ku weydiinay warqad shaqo kugu xidhayn amba AD waaya dadka hadda isfahantaan ba ka waran qofkaas oo maxaa qof shirkad weyn haysto ku raado iska wado cid baa kugu mashquulsan ku soo raasanaysa inta badan waa isfahmaysiin oo aniga oo jakina ka shaqeey jiray oo kun soo saaro warshadaha tagaway wax la gelgeliyaha sanad ku dhawaadaan ka shaqeeyahay markii dambe xirmay dadkaas waxay ahayn dad gurigooda ka dhax samaystay dhowr boos ka dhax samaystay warshad oo dooray xanaanayaan jakinka xukuumay ka soo saaraan kuwaas oo kala hadda heshid waa isfahmaysiin cid ugu imaahayna male inta badan warshadaha duurka ku yaalaan magaalada kuma dhex yaalaan magaalada banaankeeda ku yaalaan shaqooyinkaas oo kale meeqa qiyaasan lacagteeda mushaharka bishii wallaahi bil inta shaqaysa saacadood ay ku xiran tahay shaqooyinka maalta inta u badan 5 lagu shaqeeyaa 5 euro 5 iyo bar 6 laakiin taas jakinkaani aan ka shaqeeyahay 7 euro ay ahayd bishii waxa ku xisaabtami kartaa 1200 1300 aan ku xisaabtami kartaa oo euro marka saacado badan heshid waaya gabagabadii magacaaga kuma weydiin magacayga Idris la dhahaa Idris Maxamed Idris Maxamed aad ma asda Idris thank you very much